guurtida baarlamentarianka dadka faraha badan ee sharafka leh maanta halkan isugu yimid waa salaamantii waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mar labaad waxa mahadle ilaahay baa mahadle inaan ahaa maanta malaha qofka keliya ee halkan goobjoog ka ahaa maalintii arrinkii shafiil dhacay alxamdulilah arrinkaasi arrin aad iyo aad u weyn buu ahaa oo historika oo farxad leh oo loo wada dhammaa oo maanta qadiyadeenna reer somalilan maalin inagaga weyni aynayna soo marin dadka intooda badani ma arkaan qiimaha ay leedahay maalintaa taariikhiga ah ee dadka reer shafiil iyo counsilkeedu ay goosteen inay somalilan ictiraafaan ictiraafkaasi kuma iman somalilan bay jecel yihiin ictiraafkaasi wuxuu ku yimid markay darseen ee arkeen dadaalka somalilan samaysay markay noqoto xagga dimuqraadinimada xagga electionskii doorashooyinka xagga xuquuqul insaanka xagga nabadgelyada xasiloonida iyo markay arkeen dadaalka weyne 23 sannadood ay samaysay somalilan oo ahaa iyada oo buuxisay shuruudihii ay dowladi lahaan jirtay oo ay ka mid tahay dowladusutaaggeenna xuduudaheenna ilaashana dowladdeennu jirta boliiskeenna milatarigeenna nabaddeenna oo waxaa la yaala wixii dowladii ay lahaan jirtay shuruuddeedii markaynu buuxinay ayay shafiil garatay inay ku dhawaaqdo oo ay ictiraafina siiso waxaa mahadla inaan joogjoog ka ahaa 83 xildhibaan ayaa inoo booteeyey nin keliyaa ka aamusay markii aanu eegna ninkii ka aamusay waxaynu ku dhahay ninkaasi wax kasta wuu ka aamusaaye tii nown maaha qalada fahmina marka ninkaa odaygii keenoo keliya abstention buu sameeyey inamanuu diidin inamanuu oggolaan laakiin waxay idhaahdeen wax kasta oo la keeno sidaasuu ka yahay 83kaasi way ka dhibaydgarayeen way ka hadleen shafiil raggii ugu horreeyey reer shafiil ee halkan ka hadlay baa ka hadlay waa magaalada afraad waa magaalo progressive ah waa magaalo arrimaha internationalka leynka hore kaga jirta xagga ingiriiska dadka reer shafiil waxay ka hadleenoo hore wakhtigii south africa iyo apartheidkii nelson mandela soodiisii markii la soo daayey waxaa la yaala wixii kashmiir mooshinno fara badan oo ay ka booteeyeen intuba way hirgaleen waxase ayna ogaataan loo baahan yahay inay joogeen baarlamentarianskii reer shafiil paul iyo clive oo 2 nin oo arrinkeena dadaal xoog la iska saaray oo ballan ka qaaday inay geeyaan qadiyaddeenna baarlamanka oo baarlamanka ingiriiska ay ka lobi garayaan oo ictiraafkeenna ay meel sare gaarsiiyaan waxaa maanta loo yimid bilmathal ambasadoorka swedishka oo madaxweynaha u geeyey taasaanu soo absaamay waxaa la socday inboy ee swedishka ee horn of africa xafiiska markay maanta igu yimaadeen waxaa ugu weynay ka hadleen waa shafiil iyo ictiraafkeeda marka horta ma sahlanaa ha u qaadanina inay wax yar tahay waa wax weyn waa guul waa waxay maanta international kii caalamka uu ka hadlayo waxaanu ka wada hadalnay waa ninkii iga horreeyey swedishka joogay baa ka hadlay halkan inay swedishna ku xigi doonto oo dadkayga reer swedina hawsha wadaan hase yeeshee waxaan qabaa dadkeenna diyaasbarada gabi ahaanteen anna aan ka mid ahay mar haddaan dee diyaasbara muddo badan joogay oon dabadda joogay xil weyn baa ina saaran oo qof kastoo diyaasbara yahay xilka saaran waxa weeye waa safiir ummadda reer somaliland masiraya guushaa waxaa dhaliyey jaaliyaddeennii guushaa waxaa dhaliyey dadkeennii reer shafiil waxay sameeyeen wax lagaga daydo waxaynu u baahan inaanu wax ka baranno
ballan waxay qaadeen communitieski kale halkan laga sheegay ama Cardiff ama Bristol ama London ama magaalooyinka kale ama Stockholm inay nin kastaaba maanta uu ku hawlgalo hawshaa mid la mid hawshaasi maxay ka qabanaysaa xagga caalamka iyo international aniga waxay igu muuqataa aniga weliba isla malaa 40 sanaad international u shaqayso halka sare ka gaadhay inay qiimo aad iyo aad u weyn tahay oo la qadarinayo oo dadka international-ka ee caalamka iyo dawladaha kale ay maanta dhiiri gelinayso waxaan qabaa inay ku xigi doonto inay dawladdeena ictiraafaan dawlado fara badan baa interest ku ah waa la socotaana wada hadalladeennii baa la ka socdaa xamar iyo innaka oonu filaynaa inay inoo horseedaan sidaynu walaaltinimo ugu kala tegi lahayn waxaa la socotaan inay dawlado fara badan oo maanta caalamkii doonayaan inay safaarada ka furtaan halkan oo qaar badan ina soo aqbaleen waxaa la socotaan in maanta dadaalka dadkeena iyo communitieskeena meel kasta ay joogaan ay hayaan inay tahay sidii loo keeni lahaa horumar sidii loo keeni lahaa dhaqaale sidii loo keeni lahaa ictiraaf degdega maantana aynu odhan karo dawladdeena Somaliland horumarka ay gaadhay ama ha noqoto jidad ama nabad ama wada hadal ama horumar ama dadaalka ay iska saarayso in maanta ummadda xasillooni nabadgelyo ay ku waarto xalayta aniga waxa laga yaabaa in qaarkii ku arkaan TV-yada aniga wasiirka waran cadde 12 baan suuqa dhex maray waanu lugeynay madaxtooyada la suuqa ka ugu dambaysa qolada jaraa'idkan nala kulanto su'aalana weydiisay waxay ka turjumaanaysaa taas nabadgelyadeena nabad iyo xasillooni baa taa maanta nabad waxaa laga yaabaa qofku inaanu fahmin qiimaha nabadda markuu habeen kasta xorriyadda amro laakiin nabad maanta wax ka weyn oo adduunka ilaahay aynu ka baryaynaa ma jirto sida adigu la socotaan anigu waxaan ka shaqayn jiray Darfur oo hiiskiibi joogo nabadda ka shaqeeya waxaan ka shaqeeyay Jerusalem iyo Gaza meelo gubanaya oo habeen kasta madaxweyne la iska dhacayo nabad waxaad garan kartaa qiimaheeda markaad aragto dhibaatada ay nabadgelyadu tahay xamar u aragtaan marka horta inaynu aad iyo aad u fahamno maanta nabadgelyada waxa ugu weynaynu maanta haysanaa inay tahay nabadgelyadeenna xasilloonaanshadeena iyo gooniisutaaggeenna inaynu aad iyo aad uga shaqayno waxaanaan qabaa maanta arrinka Sheffield ka dhacay ee taariikhiga ah ee dadkeennii maanta ku dhiiradeen inuu dardar cusub ina wada geliyey ama ha noqoto dawladda ama wasaaradda ama shacbiga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan marka waxaan idinkula dardaarmayaa in qof kasta oo reer Soomaaliland uu Soomaalinaanimadiisa aamino oo qarannimadiisa aamino oo aynu ogaano qarannimada inay ka horayso axsaab iyo mucaaradnimo iyo muxaafadnimo oo ay danta ummadu tahay inuu qof kastaaba aamino inay qarannimada iyo waddaninimadeena iyo gooniisutaageena iyo danteena meel ka soo jeedna ay ka horayso wax kasta aynu taa wax kasta ka hormarino marka waxaan kula talinayaa qof kastaaba inuu ogaado danta reer Somaliland waa inagoo isku duuban waa inagoo wada qabsana waa inagoo walaaltinimadeena iyo wanaaggeena iyo taweyn eegna oo aan tayare loo qalbiyo hoose aynu iska dhaafno intaasaan kaga baxayaa waad mahadsantahay waxaan iminka hadda waxaan soo dhaweynaynaa marwad aad u qaaliya runtii 10 inoo dhigtay xagga punctuality-ga 8 buura ayay joogtay marka waxaan xagga ku soo dhaweynayaa marwad